bahad kici waxaan filayaa iminka in badan oo idinka kamidi waxaad hesheen shidaal aad ku joogi kartaan ama ku daawan kartaan barnaamijka saacadaha soo socda hadba shayga aanu idin haynaa wuu ka qiimo badan yahay wuuna ka fiican yahay shaygii aad hore u aragteen masraxu caawa wuu shidan yahay haddaan afkiina idinku sheego iminka waxa la gaadhay xilligii aan idin weydiin lahaa mid ka mid ah su'aalihii abaalmarinta lagu helayay ama lagu guulaysanayay waxaad ku guulaysan doontaan hadiyado aydin ku farxi doontaan waxa goobta inagula sugan dad ka mid ah dadka hadiyadahaasi ugu talagalay inaad guddoontaan su'aasha ugu horeysa ee aan doonayo inaan idin weydiiyaa waxa ay tahay yaa garanaya ereyga af Soomaaliga ee la yiraahdo mulaax waxaan idin soo qaadanayaa mahmaah tiraahda beerka beerkiisu waa mulaax waxaan rabaa qofka su'aashaas la waan garanayaa inuu gacanta taago waxa mikrofoonka u dhiibi doonta ayaan haddaba yaa su'aashaas ugu horeynaya oo garan doona السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وايد وذا السلام يا الملاحي وحوي بالمثل الصومالية جيت بالديرة جيت كدوحة وحكوا يلا إن معان مركز الله يدعو ملاح مركب مالت جيت كالديرة حركها لقى السمين أيوه أنت كنت على تشلفته وحلا يرى ملاح هل مرة خلاص عبيو سؤال شاسي سداس أي صح كنت هاي waxaad ii iman doontaa halkan waxaan ku guddoonsiin doonaa abaalmarintii lagugu talagalay ee aad ka helaysay madxafka hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxaan doonayaa inaad stage-ka ii timaado abaalmarintaasi waxa ay noqon doontaa dawo ah xanuun baabiyaha korka dawadaasi waxa ay muhiim u tahay qof weyn iyo qof yarba waxa uu marsan karaa muruqyada jirka dawadaas waxaa samaysay inoo ikhtiraacday Samira oo halkan inala joogta waxay leedahay website la yiraahdo Samira Touch Samira waxa doonaya inay istaagto haddii ay stage-ka iman kartana ay la guddoonsiiso maamadaas abaalmarinteeda Samira stage-ka ku soo dhawow waxaynu wada guddoonsiin doonaa abaalmarintaas waa ku faraxsanahay inaad garatay mulaax waxa weeyaan geedka marka la diiro maydhax baa la yiraahdaa maydhaxda marka la sii diirana waxa soo baxda mulaax mahmaahdii aan idin sheegayna waxa weeyaan beerkiisu waa mulaax waxa laga wadaa beerku waa qofka aad dhashay baa la yiraahdaa waa beerkaygii beerkaaga beerkiisuna waa ilmahaad awowga ama ayeeyada u tahay marka beerkiisu waa mulaax bay Soomaalidu ku maahmaahan waxaan doonayaa in la soo dhiibo abaalmarintii xanuun baabiyaha jidhka ama korka ama dubka oo Samira ay tahay inanta inoo samaysay isla markaana u garatay hadiyadaasi inay guddoomaan ama ay ku guuleystaan inteena caawa halkan isugu timi su'aalii wali fari kama qodna qayb kalena waan idin soo wadaa abaalmarintaas soo qaadi doonaa waa abaalmarintii xanuun baabiyaha korka waxaan doonayaa inta abaalmarintaasi la guddoonsiinayo inaad sacab weyn maqashiisaan su'aasha kalena isu diyaarisaan hees
hees baan idiin sheegi doonaa heestaas baan doonayaa qof baydadka heesta ka mid ah ee aan idiin sheegay micneeya ama macnaheeda sheega heestu waxay tidhaahdaa maxay dantu ciishay wiiloo dulqaad iyo deeq lahaayo dadkuna doqon moodayaan waxaan doonayaa qof heestaas micneeya inuu gacanta ii taago dadka dambe idima ilaawi doono xagga dambe soo fadhiya haddii aad gacanta taagtaanna waanu idiin iman doonaa halkan waxaa inagula sugan cabdinuur allaale oo ah fanaanka heestaasi qaada isagaana abaalmarinta guddoonsiin doona qofka garta haloo sacabiyo lejen cabdinuur allaale Assalamu alaikum. I am from Djibouti. aad baan maanta ugu faraxsanahay fannaankayga Djibouti inuu joogo annaga ka soo qayb karay Soomaaliya anniversary-kiisa marka heesta maxay igu soo celi maxay dantu ciisha wiiloo dulqaad iyo deeq lahaayo dadkuna nacas doqon moodayaan waliba waxa ku luqayn doona inta aan ku weydiiyay Cabdinuur waa runteed midhahan saxo dantu heesku wuxuu ka bilaabmaa maxaa deericad geel halaabay dib jiray uu cunay dugaago ninkii lahaa daydaya maxay dantu ciishay wiiloo dulqaad iyo deeq lahaayo dadkuna doqon moodayaan sidaas markaa dadku dhalinyartii heeska qaadaysaa kala horraysiisay laakiin ujeed bilowgiisu waa sida heeska marka hore maxaa deericad geel halaabay geelii lumay baa la raadinayaa maxay dantu ciishay wiil baa la rabaa fartaa la taago haddii kale anaa isku qabaya dacaawa may أنا أجيب محي دنتو عيشة نعم محي دنتو عيشة وكرواية يا سومالي جبتي سكمنت ما نعم وحيد وكرواية نعم وهلي لها لكن دنتي سبع عيشة دلقاد يسمر نويش سامبل waxaan doonayaa in qof kale uu ku ceshto su'aashaas oo gacanta taago koox baa halkaa gacanta ka taagaysa السلام عليكم. عليكم السلام. I'm from Djibouti again. So maxay dantu ciishay wiil waxa weeyaan maxay dantu ciishay wiil waxa weeyaan wiil oo wax walba qofku qabsan lahaa dan baa dib u dhigtay oo dulqaad iyo deeq lahaa waa wiil oo gabadh raadinayay oo gabadh doonaysay ayaa waxa dantii baa dib u dhigtay marka gabadh kale laga siiyay gabadh kale looga dhisay wiilkii marka isaga dantii lacag muu haysan dhaqaale oo gabadhii ku doonto reerkoodiina gabadh kale siiyeen soo dantii baa dib isaga u dhigtay dulqaad iyo deeqna uu lahaa dulqaad iyo deeq muu lahay oh sorry su'aashaasi inkastoo ay gabadh ka dhigtay ujeeddada loo sameeyey taa ay sheegtay weeye allaha u naxariiste ibraahim gadhle oo abwaan ahaa xariishana allah ayaa sameeyey heeska goobannimo doon buuna ahaa ruwaad goobannimo doona oo halgankii Jabuuti ku jirtay marka halka ay gabadha ka dhigtay ayaa calanka ahaa ma gaadhin awood ilaayo dawlad ka weyn oo Faransiis haysta awood uu kaga ritana ma u lahayn marka dhagax baa laga ridayay muddada isaga haystay dulqaad iyo samir baa loo yeeshay marka in ummaddu u dhanaato oo la wada fahmo sida ay sheegtay way gabadh bayna ka dhigtay wayna fiican tahay maxaa dayricad geel halaabo dib jiray u cunay dugaago ninkii la qadaydayaa maxay dantu ciishay wiilow dulqaad iyo deeq lahaayoy dadkuna doqon moodayaan
waqtigu waystaba socdaa adigoo deganaa abaar marbuu dirir ku da'aayoy daaruruqu ku curtaanood xareed ku dabaalata waqtigaa inagu simayn guulaystaha intay deqeeba maqan tahay haddiilin hana iga dagaalin dubka iigu yaaleeyax wadanahan damqashada kadaa waxaan u malaynayaa cabdinuur oo reer jabuuti caawa adigay si weyn kuu soo egteen oo kooramka way soo buuxiyeen anu Soomaali oo dhan baan ka dhaxeeyaa jabuuti waan ka soo baxay laakiin Soomaali oo dhan baan ka dhaxeeyaa waa fanaan qaran baan waa si fiican reer jabuutina waa salaamaynaa dhammaantood mar kale waxaad ku guulaysatay abaalmarin ah xanuun baabi'iyaha korka iyo murqaha